السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين بالكاد نقلص عتم وجنا الكين قصون جعل وحن آدي ديجر رالي قلنا أختي دي كومنان هو ذاك المغني تاسو عن ديجر مشغول لها ولا كلا أنت كبعدي ما أنت وحن داود ودي ودنا قصة جعل واد ساد هذا بين وبرتين قصون جعل قصة كم ذا دي ودنا كل قصة إني آدي بحن بدون تاي وأنا قصة مرنا فرحات اللي يصير مرنا مرقو هلو يدوتي هذا بقى دعوة وقصة سمعان ودور قصة أيها وحنا صدر ويل جوجا عاصمة كيجينكا سوماليلاند برعو وحنا نوصل قرصة وحن كنا لهاي قبل كتقدير ما عيو داش قصة وحي كل عضي ويل عن صاحب وإن بدنا هاي إلى حد عن هاي قصة وحن ربع إن عن مقعدة حسين حسيشة سداس أيام قصة يديكو صدرية قصة waxaan ku khasbanaa inaan idii bilowna anagu maadaama magacyadii la qariyay ma jeclin anaguna inaan daaka qaadno qisadani waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah iyo inan dhalinyaro ah waxaana u bilaabmaysaa sida tan waxaan wala soconay muddo 6 sano ah nolosheeda bilowgeedii waan isu faraxsaneen waxaanan ahayn arday wax dhigata midkaayagana muu ahayn wax amal ah amaba shaqo ah haddaba waxaa jirtay dhibaatooyin badan oo aan isla soo marnay waxaa jiray in ehelkooda qaarkood ay igu diraan gabadh aan jeclaa laakiin hase yeeshee waxa dhagaha uma dhigin waxay igu qabtay kalsooni ana waxaan ku qabay kalsooni inanta waalidkeed way ii ogolaayeen inaan inantooda la sheekayso misna aan xiriir la sameeyo hase yeeshee waxaa jiray asxaabteeda kale amaba ehelkeeda kale ayaa diidanaa in aan inantan xiriir wala sameyno waayo waxaan ahaa wiil da'yar shaqana ma hayn waxbarashana waan waday iyaguna waxa ay la rabeen qof hanti leh amaba ganacsada ah waxaa dhici jirtay in aan mararka qaar gurigooda ugu tago waxaana dhib ah kalamana kulmi jirin si waji furnaan iyo qalbi dabacsanaan iyo soo dhaweyn wanaagsan mooyaane waxaa jiray hal shakhsi oo gabadha isaguna rabay kaas oo ahaa nin u dhow dariskoodana ah ahaana ganacsada weyn kuna hor haystay dukaan hase yeeshee marar badan u soo bandhigay jacayl misana aanay ka aqbalin iyaduna waayo iyada aniga ayaa qalbigeeda ku weynaa iyaduna aniga ayay qalbigayga ku weyneyd taasaa sababtay in aan midkaayana qof kale u jejeerin amaba xiriir la sameeyo jacaylkan suqumnay labadeedu waxa uu gaadhay in dhammaan nalaga ogaado xaafadaha aan degnayn amaba annaga xaafadeeda iyadana sidoo kale laga ogaado marnaba maanan kala hadhi jirin waxaanu hayn dad wala socda haddii ay ahaataba mususaace iyo haddii ahaataba fasaxba waxaanu hayn dad wala jira teeda kale waxa ay sababtay in labadii qof ee kasta ay meel taaganiba ay annaga na hadal hayaan oo ay leeyihiin waa maxay waxaan jacayl ma ahee malaaba waa wax ka weyn dan kale ayaa jirta waxayna la yaaban yihiin labadeedan qof oo aan midkeygana wax adduuna aanu hayn misana haddana nolosha si dhaba isugu faraxsan hase ahaatee mar kastaba waxaa dhagahayga ku soo dhacaa waddo kasta oo aan maraynaba allah yaay jacaylkii baa waddada maraya maanta intaa ka bacdi waxaa noo dhammaaday dugsigeygii sare waxaanu u gudubnay jaamacadda hase ahaatee gabadhii jaamacadda markaan u gudubnay waxaa loo sheegay in layn dibadda ah u soo baxay iyada iyo faamilkeeda balse hase ahaatee waa ay ka madax adeegtay waxaanay go'aansatay annaga oo jaamacadda dhiganayna inaan isguursanno run ahaantii anigu waxaan sameeyo waan garan waayey waayo iyadana waan jeclahay waxaana igu adkaatay inaan mas-uuliyaddeeda qaado waayo ma hayn wax camal ah amaba shaqo ah teeda kale waxaan rabay waxbarashadana inaan sii wato oo aan heer ka gaadho si aan uga midho dhaliyo balse habeenada ka mid ah iyadoo taasi jirto ayaa waxaa isoo wacay ila soo hadlay inanta hooyadeed iyo aabaheed
waxaana iga dalbadeen inaan xaafadda ugu yimaado. markaan u tegay waxay iga codsadeen inaan inantooda u fasaxo si laynkaasi aanu uga khasaarin, iyadoo anigana ay ii sheegeen inay ogyihiin xidhiidhka labadayada naga dhexeeya, iguna yidhi mar kasta way adigan ay kuu joogtaa, hase ahaatee waxaad noo fasaxdaan in laynkaas si aan nooga khasaarin, haba yeeshe hadday doonto ha kuga soo noqotee. waxaan sameeyo waan garan waayey, waayo naftayda ma aysan ogolayn qofka aan jeclahay in ay iga fogaato. hase yeeshee waalidkii waxaan ku idhi waan idiin ogolaaday, waxaanan isku dayay inaan u dhaqaaqo xaggii uu qolkeedu iga xigay. waxaanan u galay iyada oo ooyeysa, waxaanan ku idhi xabiibi, labadeennu waxaanu nahay ul iyo diirkeed, cid allaale cid ina kala fogeyn karta ma jirto. hase yeeshee tan maanta timi waa laba daran mid dooro, u ogolow hooyo iyo aabe inaad tooda u fuliso, waayo duco aynu ka helaynaa. waxaana laga yaabaaba inaad hodhowtole ay kusoo fasaxi karaan, misena aanay farxadaadana wax u dhibeen. waad aragtaa sida ay hadda inoola dhaqmayaan ayay hodhowna inoola dhaqmayaan. mar walbana waa dad jecel inaynu wala soconno. waana ay iga yeeshay habeenkaas ma seexan ilaa waagu ka soo baryayay. waxaa ii bilaabmay kelinimo iyo werwer aan joogto lahayn iyo ooyin aan ilmadaba joogsamaynba. ma garanayo haddii ay iga fogaato waxa aan samaynayo amaba waxa ila soo darsi karaa, balse hase ahaatee waxaan isku dayayaa mar walba inaan niyadda isku dhiso oo aan dhaho haddii aad maanta isweydaan biraad is helaysaane niyadda khayr u sheeg aan mar walba isdhaho. maalmo kadib waxa i soo wacday iyadii, waxaanay ku tiri waxaan rabnaa inaadna raacdi, waxaanan u baxaynaa Etoobiya, waxaana rabnaa inaad safarka nala sii geshid, hase ahaatee hodhowa aad soo noqotide. balse waan ka ogolaaday, waayo waa maalintii iigu dambeysay nolosheeda inaan arko, waayo waana ku farxay inay markii ereyga igu tiri, waanan u raacay. hase ahaatee Hargeysa ayaan kaga hadhay, iyaguna Hargeysa ay kasii tageen oo ay diyaarad ka raaceen ilaa iyo Etoobiya. intaa kadib waxaan dib u soo laabtay meeshii uu hooygaygu ahaa. hase yeeshee inta aan gaadhiga soo saarnaa marnaba niyaddaydu ma ay degin, marnaba ma ay murugadii iyo fakarkii igamaba yaraan ilaa uu igu sii bato mooyaane. hase yeeshee waxaan soo galay meeshii aan hoyga ku lahaa, aniga oo isbedelay, wejigayguna si kale u noqday. maalintaa kadib waxaa ii bilaabmay murugo iyo fakar joogto ah ilaa aan gaadhay heer aan cuntadaba iskaba daayo oo aanay wax dhadhana iiba lahayn. sida ay wax ahaataba waxaan iskala qabsaday noloshaasi. intaan jaamacadda ku jiray ayaan waxaan helay shaqo ah gelinka hore oo ahayd office manager, waana iska shaqaysan jiray. iyadana waxaan walba oo ay u baahato kama hagran jirin. hase yeeshee intii ay halkaas joogtay ayaa waxaa ku yimid isbeddel, oo waayo waxa ay yeelatayba asxaab kale oo ay ka wada xidhiidhaan baraha bulshada. iyadoo waxaan hayay gmailkeeda amaba baaswoorkeeda ay ku isticmaasho facebooka, iyadana sidoo kale kayga waa haysay. hase yeeshee anigu mababa waqtiba uma helin ilaa aan markaan iyada kagala hadlayo mooyaane inaan qof kale kala hadlo. balse hase ahaatee maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaabaan arkay baraha facebookeedii oo ay asxaab badan ka yeelatay, misenaba ereyo kaftan iyo odhaahyo jacayl laisla weydaarsanayo. waa aan iska indhatiray, waayo waxay ahayd qofta nolosheeda ugu qaalisan, mana odhan karin ereyo maagis ah amaba canaan ah. hase yeeshee waa aan dul qaadan waaye. mararka qaar ilaa aan arko kulamo iyadoo la qabsanayaba amaba ay ballaanmayaan, kadibna hodhowtoole ay ka faaloonayaan kulankii ay isku kulmeen labada qof, amaba ay iyada iyo qofka ay kulmeen ay ku faaloonayaan kulankooda siduu ahaa amaba farxadooda, oo midba midka kale uu leeyahay ma soo koobi karo caawa farxadda labadiina ina dhex martay, ana oo aan u dul qaadan waayey. hase ahaatee waxa ay soo wacday aniga oo cadha daraadid isleh maba wacdaa. marka ay soo wacday
ereyga ay koowaad ay igu tiri ayaa wuxuu ahaa ii waran macaanow. marka inta ay igu tiri ayaa qalbigayguwa waxa uu noqday qaboow, waxaanan kari waayaba inaan erey kale oo magisa ku celiyo. hase yeesee si sarbeeb ah ayaan u weydiiyey, waxaana ku idhi malaaba ayaamahan waxaad moodaaba inaad asxaab cusub yeelatay, waayo imaba soo xasuusanaysid baraha bulshada saan ku arkana waxaaban arkayaaba kaftano, odhaayo iyo laisweydaarsanayo. waxaa igu tiri waxaas wax kaba jiraan ma aha, waayo waqtigoon ayaan ku lumiya ee nolosheeda oo dhan adiga ayaa iska leh, ee adiguna hayga fogaani niyadda un waxaad gashataa inaan adiga mooyaane qof kale aan abidka intaan joogo aan odhanayn. hase yeeshee markaa intaa igu tiri anigu run ayaan u qaatay, waayo waxay ahayd qayb ka mid ah jirkayga, misenaba maba ogolan intii aan nolosha soo wala qaadanay ee hore marnaba in ay wax been ah ii sheegto. hase yeeshee intaa kadib waxaa dhacay in mararka qaar ee aan moobilkeeda waco in ay igaba qaban weydo, misena mararka qaar ayba iguma mashquuliso. waan fahmi waayey ujeedka ay ka leedahay, balse anigu intaaba waan samrayo waxaan lahaa wax unbaa khaldane u iska hagaagi doontaa. intaa kadib baraha bulshadeeda ayaan aniguna hayay mar walba waan eegi jiray, waayo ayaamahanba saawaaba kasii jariyin ayaamii hore. waxaana igu sii badatay cadhada markii aan arkay sawiro ay leedahay oo ay dirayso, misena sawiro kale loo soo dirayo inama jooga, laba jooga iyo kuwaba kaba maqanba. hase ahaatee xidhiirhkan faraha badan ayaa waxaa maskaxdayda sii geliyay murugo iyo fikir ah inaanay adiga kuba rabin. intaa kabacdi waxaaba laysku soo dirayaaba waan arkay wiil ay wala joogaan, misena ay mar walba kulmaan iyagoo ay isku diraya sawiro ay labadoodu ku wala jiraan, kuwaas ay ku galeen meelaha farxadda lagu qaybsado amaba laguma kulmo, amaba dadka ay jecel ay ku kulmaan ee aada iyo aadka u quruxda badan. haddaba daawadow intaynu iskaga iman doono qaybteedna labaad ee qisadan aada iyo aad ku xanuunka badan, waxaynu ku kala degi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. intaa kadib waxay ilaawina inaad samaysaan like, share and subscribe si aad ula socotid qiso walba oo channelka la soo geliyo.